inkastoo adduunku ku mashquulsan yahay maanta ama wixii ka dambeeyay dhammaadkii sanadkii hore in si sax ah looga hadlo ma loo baro faafitaanka cudurka corona ee ka soo bilaabmay cariga Shiinaha, haddana tani kama hor istaagin sii wadida daboolidda musiibooyinka iyo goorka ee dhiiga ka daadasay qulubta muslimiinta adduunka si isku mid ah kadib markii dowladihii dunida ilbaxa ay ka aamuseen sidoo kale dowladuhu wana magaca islaamkuna ka gaabsadeen dhan kalena uu Shiinuhu si cad u dafiray inuu wax xasuuq ah u geystay muwaxidiinta iyo goorka muddo laga joogay sanad ku dhow ayaa warbaahinta ee kanaalada reer galbeedku ay soo saareen warbixino sheegay inay jiraan cadaadisyo nidaamsan oo ka imanaya Shiinaha shuuciga ah kanaadan ah muslimiinta iyo goorka laga tirada badan yahay ee ku sugan bariga gobolka Xinjiang xitaa warbixinadaasi waxay ku sifeeyeen waxa ka dhacaya gobolkaas laga xaniyay warbaahinta kana go'doonsan juqraafi ahaan adduunka intiisa kale waxay ugu yeereen dhaqamada naasiga waxay aaminsan yihiin hogaamiyaasha Peking inay goorka ka guteen dantay kala haayeen dhan kalena ay aamusiyeen carabadooda inay awood u yeelan doonaan inay baabiyaan muslimiinta gobolka galbeed ee dalka iyagoon wax buuq ah samayn laakiin rabbiga dholalka iyo cirarka ayaa waxa uu rogay miiska taliyaasha dalka diinlaawayaasha ah inuu gacanta u galay qof aan rumaysnayn waxay ugu yeedhaan falanqaynta siyaasadda sidoo kalena ku dhiiriday waxay ku dhaceeda yeelan waayeen warbaahinta iyo siyaasiyiintuba ciyaaryahanka reer Jarmal asalaana ka soo jeeda Turkiga Mesut Ozil oo ah xirfadle hore uga tirsanaa naadiga Arsenal ee barta Twitter-ka soo dhigay dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore isagoo dhaleeceeyay ficilada cabudinta iyo cusriyada ah ee madaxda Shiinuhu ku hayaan muslimiinta iyo goorka wuxuuna cabaariyay adduunweynaha la taagan iyo daawashada musiibadan isagoo su'aashan uga tagay dowladaha muslimiinta ah away dowladihii islaamka ahaa maxay wax uga qabaan ay waxa ku dhacay waalahooda la diinta ah isla markii dowladda Shiinaha ayaa ka gadooday ficilkii Ozil uu sameeyay waxaanay ka hor istaagtay inuu soo galo waddanka Shiinaha laakiin taasi ma joojin mowjadaha naxariista ah ee Allah ugu talagalay kuwa lagu dhibay dhulkan wargeyska caanka ah ee The Guardian ayaa daabacay baaritaan cabsi leh oo ku saabsan qaabka jirdirka ah ee loo geysto dadka iyo maxaabiista ay hayaan waxaana sidaas la mid ah shirkadda CNN ay u gudbisay warbaahinta caalamka dokumentari ku saabsan magacyada maxaabiista tirada badan ee ku xareysan goobtaas laakiin sida caadi ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu waxay beenisay dhammaan dokumentariyada. I'm a reporter for BBC Panorama. I wrote to you this week, sir, actually, about the camps in Xinjiang. I know that they are prison camps. Why won't you tell me the truth about those camps? First of all, I would say there's no so-called labor camps, as you described. There's what we call vocational education and training centers. They are there for the prevention of a terrorist. With respect, sir, I have seen, I'm sorry to interrupt you, but I have seen the orders that are sent to the prison camps, and they are prisons. What order you have? You mean the order said this is a prison camps? They are orders for the people who run the camps, and they're quite clear that this is a prison camp. This is a pure fabrication. It's true, and they're brainwashing camps. What is happening? They change the way people behave, what they believe, even the language they speak. So they are brainwashing camps, aren't they? I think there's no such order for prison camps. You know, in Xinjiang, religious freedom is fully respected. Just to be clear, the documents I've seen make it quite clear that people are held there. Hundreds of thousands of people are held in these camps across Xinjiang. What you're telling me bears no relation to what I've seen. The document, so-called document you're talking about is a pure fabrications. Don't listen to fake news. Don't listen to fabrications. dhibaatada goorku waxay ka soo bilaabmatay maamuladii kala dambeeyay tan iyo markii dowladda Turkistan tabari xoog loogu daray Shiinaha shuuciga ah sanadii 1876 sababtuna waxay dhulkaasi diinaa oo ka buuxay macdano kala duwan sida saliidda gaaska dhuxul dhagaxda waxa inta u dheer kor u kaca cadaadiska iyaga ka dhanka ah tan iyo tii ay xukunka hayeen qoyska Manchuuriya hogaamiyaasha qoyskaas ayaa si baraara u aflagaadeyn jiray dadka muslimiinta ah waxay ku xadgudbeen tacaariintooda waxay u magacaabi jireen barisaabo haysta diinta Buddhismka ama qaar bilaadiina kuwaasoo shaqo tahay cadaad saaran dadka muslimiinta ah meeshana ay ka saareen diinta Islaamka waxa xaaladu saahaataba waxay goorku sameeyeen kacdoon ay ku dalbanayaan madax bannaani 12 December 1933 laakiin midowgii Soviyetka ayaa dhexda ka jabiyay kacdoonkii curdinka ahaa iyadoo ku dhaldhaafiyay kumanaan muslimiin ah oo xuriyad dalbanayay waxaanu Shiinuhu midowgii Soviyetka ugu abaalguday inuu baadho macalinta ku jirta dhulka uu ku laayay kumanaanka muslimiinta ah laakiin dhacaasi kama hor istaagin Igorka inay soo awlaan kacdoon labaad waxaana qarxay kacdoon aad u ballaaran 7 November 1944 waxaa lagu dhawaaqay bisha 15keedii iyadoo taageero laga helay Soviyetka
laakiin Shiinaha ayaa u daray guutooyin isdaba jooga si loogu soo celiyo Igoorka xayndaabka deecista ilaa ugu dambeyntii ku guuleystay inay xakamayso Igoorka sanadii 1946 bishii January waxaana Igoorka sanadkaas loo ogolaaday xukun hoosada iyagu leeyihiin. shuuciyadii hogaaminaya Mao Zedong waxay la wareegeen gacan ku haynta Shiinaha October 1 sanadii 1949 waxayna ku bilaabeen xukunkooda baabkii ugu madoobay taariikhda Igoorka maadaama uu bedelay magaca gobolka oo ahaa bariga Turkistan una bedelay Xinjiang oo macnaheedu yahay xuduudaha cusub ee Shiinaha oo beerkiciyo 10 kun oo muslimiin ah laguna bedelay Buudhiisiyiinta qowmiyadda Han. waxay mamnuuceen barashada diinta Islaamka iskuulada waxay burburiyeen boqolaal masaajid waxay xifdintii Qur'aan ku bedeleen barashada tacaaliimta Mao iyagoo dhaawac u geysanaya qof kasta oo muuqda inuu yahay muslim. waxay markale kacaan ka sameeyeen 1966 magaalada Kashgar iyadoo la xiriirinayo soo gelida Ciidul Adxaaha waxaana meesha ka baxay adkaysiga badnaa ay muujiyeen muslimiinta Igoorku iyagoo u samreeyay maamul leynaya kumanaan muslimiin ah balse Shiinuhu wuxuu kaga abaalmariyay ficilka inuu gumaado kumanaan iyaga ah waxaanu Shiinuhu uga faa'iideystay weerarkii Sebtembar 2001 si uu sii waajibaaro dilkii Igoorka iyadoo la helin maxkamadayn cadaalad ah. waxay cirkaas ku shareetay cadhada Shiinaha iyadoo ay sii kordhisay joogitaanka Mareykanka ee bartamaha Aasiya intii u dhaxaysay 2001 ilaa 2012. dhanka kale Shiinuhu wuxuu isku dayay inuu hoos u dhigo kacdoon ballaaran oo ka dhacay Urumqi horaantii bishii Julaay 2009 kadib markii booliiska Shiinuhu ay dileen Igooriyiin iyagoon wax cadayn ah ku hayn dhacdadaas oo galaafatay nolosha kumanaan muslimiin ah oo waxba galabsan. Just after the G20 summit in Russia, Chinese President Xi Jinping is continuing with his diplomatic tour in Kazakhstan. It's Xi's first visit to the Central Asian country as Chinese president. Topping Xi's agenda Saturday was a speech he delivered at the Nazarbayev. sanadkii 2013 madaxweynaha Shiinaha hadda talada haya Xi Jinping intii ku guda jiray booqashada uu ku tagay dalka ay dariska yihiin ee Kazakhstan wuxuu hordhigay mashruuca cusub ee Silk Road oo loogu magac daray Belt and Road Initiative oo ay ku baxayso 900 oo bilyan oo doolarka Mareykanka. haddaba mashruucan weyn ee Shiinaha ayaa waxa loo kala qaybiyay Land Silk Road wadada jidadka tareenka ee ka bilaabma bartamaha Aasiya iyo Ruushka ilaa Afrika iyo Yurub iyadoo loo marayo badda koonfureed ee Shiinaha iyo badweynta India. waxaa mashruucan barbar socda asaaska kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha wadooyinka tareemada dhuumaha xambaara saliidda iyo gaaska khadadka internetka iyo korontada iyo waliba 6 marin oo dhulka ah oo lafdhabar u noqon doona ganacsigan iyo isku socodka. waxaana kala yihiin buundada cusub ee Eurasian Continental Bridge wadada isku xidha Shiinaha Ruushka iyo waliba Mongolia wadada Shiinaha iyo Pakistan wadada Shiinaha iyo India wadada isku xidha Shiinaha bartamaha Aasiya ilaa galbeedka Aasiya wadada isku xidha Shiinaha Bangladesh India iyo waliba Myanmar. 2 Maritime Silk Road Belt wadadani waxay ku saysnaan doontaa dhisidda isku xidhka dekedaha Shiinaha gaar ahaan kuwa ugu waaweyn iyo dekedaha Pacifica ee ka gudba dhinac ka mid ah badda koonfurta ee Shiinaha iyo waliba dhanka kale wadada isku xidha dekedaha ugu ballaaran Aasiya iyo dekedaha qaaradda duqda. haddaba mashruucan ayaa helay taageerada laba daris oo muhiim u ah Shiinaha kuwaas oo kale ah Pakistan dariska galbeed iyo Ruushka oo ah dariska bari taasoo ugu wacantay faa'iidada dhaqaale iyo istiraatijiyadeed ee labada dal ka heleen mashruucan muhiimka ah. taas darteed ayuu Shiinuhu 14 bishii Sebtembar ee sanadka 2016 ula saxiixday Pakistan heshiis ku kacay 46 bilyan oo dollar in badeecadaha Shiinaha ay uga soo gudbaan bariga dalka una sii maraan badda Carbeed iyagoo sii maraya dekedda Gwadar ee Pakistan kadibna sii maraya biyo-mareenka caalamiga ee Hormuz kadibna waxay noqonaysaa marinka ay alaabada Shiinaha ka soo galaan adduunka intiisa kale waqtiga aad uga yar inta ay ku qaadan dekedaha kale. wadada xiriirta ee cusub waa mashruuca soo noolaynta wadadaas muhiimka ah ee ka soo bilaabmi jirtay magaalada Shiinaha ee Chang'an kuna dhammaan doonta Yurub iyadoo la sii marayo wadamada Islaamka ee dhaca bartamaha Aasiya. waa dhul ka mid ah safar dheer oo la adeegsan jiray laga soo bilaabo dhalashada Nabi Ciise ka hor ilaa qarnigii 5aad waxaa loo yaqaan wadada waqooyi dhinaca badda ee soo ifbaxday qarnigii 16aad waxay ka bilaabmataa badda cas ee jasiiradda Carabta waxay ku dhamaataa Masar iyo wadamada kale ee Mediterranean-ka waxaa loo yaqaanay wadada koonfureed. waxay boqortooyada Shiinuhu wadooyinka dhex marin jirtay xiriirta oo markaa badeecada ugu muhiimsan ee Shiinuhu caalamka kale u dhoofiyo sidaas wadada lagu magac daray wadada xiriirta. laakiin qaabka casriga wadadaas wuxuu dhaafi doonaa xuduudihii hore si loogu daro wadamada Latin America iyo labada gobol ee badweynta Pacific iyo Caribbean-ka. Shiinuhuna waqti kuma lumin doono inuu helo saxiixa dalal iyo ururo badan oo adduunka ah tan iyo sanadkii 2017
ilaa ay tiradoodu kor u dhaaftay boqolaal dowladood iyo ururo caalami ah sanadka 2018. haddaba si Beijing ay u soo jiidato taageerada wadamada oo mashruucu sii mari doono, waxay ballan qaaday inay siinayso $8 bilyan oo dollar. dowladda Shiinaha ayaa sidoo kale aasastay sanduuq maalgashi oo lagu maalgelinayo mashruuceeda qaran oo lacagta ku jirta ay kor u dhaafayso $100 bilyan oo dollar. magaca hal beer iyo hal wado oo lagu hirgelinayo dhowr iyo 20 mashruuc lagana bilaabay dalal dhowr ah oo ku yaala inta u dhaxaysa Shiinaha ilaa iyo gobolka Leegsanayo. haddaba mashruucan ayaa waxa uu helay ama leeyahay qiimo maalgashi oo gaaraya $5 bilyan iyo 400 milyan oo dollarka Mareykanka. Shiinuhu wuxuu bilaabay inuu gurto midhaha mashruuca soo kordhiyay faa'iido ay u dhoofiyaan wadamada mashruuca Belt and Road 16%. intaasoo kaliya ma ahan, dhanka kale Shiinuhu wuxuu ku guuleystay inuu helo ogolaanshaha Talyaaniga ku biirista mashruuca intii madaxweynaha Shiinuhu ku guda jiray booqashadiisa Roma 21 bishii March 2019, taasoo suurto gelin doonta in Talyaanigu maalgashi ku sameeyaan suuqa Shiinaha iyadoo loogu bedelayo shirkado Shiineys ah oo u qalma dekedaha Talyaaniga sida ku heshiiska la saxiixday ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte. Shiinaha ayaa qaaday tallaabo dheer oo ku saabsan habka loogu bedelayo mashruuca mid dhab ah oo la taaban karo iyadoo dalka Shiinaha lagu qabtay shirkii Belt and Road Initiative oo ka soo qayb galeen 35 madax dawladeed. waxaanu shirku socday intii u dhaxaysay 25 ilaa 27 bishii Abriil 2019 iyo waliba saxiix heshiisyo dhaqaale oo la galay wadamada ka qayb galaya kuwaas oo qiimahoodu ka batay $46 bilyan oo dollarka Mareykanka. iyadoo la cuskanayo mashruucan, Shiinuhu wuxuu si bahalnimo burburiyay 10 masaajid. sidoo kale wuxuu caruur ka kaxaystay qoysaskooda isagoo ku xareeyay xerada caqli-dhaqista si loo baro caqiidada Shuuciyadda iyo in la adkeeyo tallaabooyinka lagaga hortagayo iyo goorku inay soomaan bisha Ramadaan iyagoo ku qasbaya cabidda khamriga iyo cunista doofaarka. sidoo kale waxaa la magacaabay ilaaliyaal ku nool guryahooda oo ka ilaalinaya inay sameeyaan caadooyinka Islaamka. sidoo kale mas'uuliyiinta Shiinaha ayaa in ka badan 1 milyan oo muslimiin ku xareeyay xarumo wada jir ah oo isticmaali jireen iskuuladii iyo jaamacadihii ku yaala gobolka kadib markii xabsiyadii ay buuxsameen. dhanka kale xukuumadda Shiinaha ayaa wada dadaalo ay ku dabarjarayso muslimiinta gobolka iyagoo gashaantimihii goorka ku qasbay inay guursadaan Buddhiisiinta qowmiyadda Han. daawade waxay isweydiinaysaa haddii Shiinuhu gaadhay ama xaqiijiyay kobaca dhaqaaleynta leeg wuxuu ugu xadgudbayaa muslimiinta ee goorka ee gobolka Xinjiang. ujeedka dilkan ayaa wuxuu yahay in magaalada Kashgar oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Xinjiang marka laga yimaado caasimadda Urumqi ayaa waxay ahayd waddo muhiim ah oo ku yaalay waddadii hore ee xiriirta ilaa taariikhnadii waagaas ay u bixiyeen luulka ama bocda waddada xiriirta. haddaba dalabaadkan daba jooga ee goorku ay Shiinaha kaga dalbanaya madax banaanida wuxuu khatar gelinayaa mashruuca curdinka ah ee Shiinuhu jooglay hadda. waa tan labaad Shiinuhu wuxuu sidoo kale waayi doonaa dekad muhiim u ah daabulka alaabada adduunka iyo saliidda bartamaha Aasiya taas oo ah dekadda Alashanko. dekadan oo Shiinuhu ka soo dejiyo wax ka badan 2 jibaar wax soo saarka saliidda sanadkiiba. dhanka kale waxaa gobolkaas mara 851 tareen oo iskaga kala goosha Shiinaha iyo Yurub. tan saddexaad ayaa waxay tahay in dowladda dhexe ee Beijing ay ka baqday in qandaraaska gobolkaasi burburo haddii goorku xornimada u helaan gobolkaas. dhanka kale Tibet ayaa isaguna dalbanaya xornimo marka xadgudubka nidaamsan ee goorka lagu hayo wuxuu fariin digniin u diraya kuwa iyaguna madax banaanida ka dalban doona Shiinaha. sababahaas korre oo dhan marka laga yimaado, Shiinuhu wuxuu silciyay goorka isagoo bal eegaya in dowladaha muslimiinta ay u soo gurmadaan iska daa gurmade bal inay kala hadlaan. waxaanu Shiinuhu saxiix heshiis la xidha waddada xiriirta ah. khalaas way dhamaatay, ma jirto goorka cid u soo gurmad doonta oo aan ka hayn Allah subxaanahu wa ta'ala iyo shucuubta muslimiinta ah. waxaa muuqaalkan ku soo gabeynaya weedha ah Shiinuhu iska suga ciqaabta ka ajiiba baryada la dulmiyaha. suga ciqaabta rabbaaniga suga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.